السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا يوتيوب شانل كينا سومالي يوث سكولرز. طبعا حاسس لي الفيديو كان ادو ديري هاي وان قرنا سومالي ساونان صبر دن مالين يعني صبر كي إلهي نغا قاد هدي ادانينيس arabtid aad ku hami weynta inaad scholarship kan xog badan aad ka hesho oo aad apply gareyso, please keep watching this video ila dhamaadka dambe daawo videogan dulqaad yeelo. Alright, digniin 10 daqiiqo ee ugu horeysa videogani fadlan si gaar ah u dhegeyso ee ila soco. kuma sharxi doono meeshani wax kale, waxaan idinku tusi doonaa waxyaabaha kuugu muhiimka ah intaadan bilaabin buuxinta foomkani. fadlan 10 daqiiqo ku wareerin meel kala fiirin videogan dhegeyso waxaan kuu sheegayo meel ku qoro. Okay. marka waad kasoo dhawaada YouTube channel keena Somali Youth Scholars. yani YouTube kani waa YouTube aan ugu talagalnay inaan kusoo gudbino maanta fursadaha dunida ka jirta ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ay kamid tahay sidaan oo kale deeqada waxbarasho. haddii aad u aragtid mid faa'iido ku ah naftaada noo tixgelina subscribe noo sartid, just click iskaga dhufo buttonkaas guduudka wax lacag kuuma fadhiyo. Anyway, maanta mawduucan ka hadli doonaa wuxuu ku saabsan yahay deeq waxbarasho ee ay bixiso dowladda Ingiriiska. deeqdan waxbarasho waa deeq waxbarasho oo sanadkii hal mar la furo. waan garanay su'aal badan oo maskaxda ku jiro oo kamid tahay Soomaali ma xariisan kartaa? Passport Soomaali qof futa ma xariin karaa? waa xariisan kartaa qof ku diida mana Soomaaliya tahay macnaheedu ma aha inaad qof xun tahay wadan xun ka soo jeedid. Passport Soomaali daystin passport xun u yahay. dad badan oo yani Soomaali markay imaato deeq waxbarasho iyo waxyaabo noocaas u xilin passport Soomaali haysta yani geesina Ingiriisiya scholarship siina minxa yani deeq waxbarasho siina waa loo siina waan u qalanta ardayna xuquuq u leeyahay. waan garanayaa dad badan asxaabaan ahnay la wiil jaamacadda City ka bixin yar uu joogaa Ingiriiska scholarship kan uu ku baxay. sidoo kale yar kale jiro wili muusan bixin laakiin Muqdisho jooga hada laakiin uu bixi doona insha Allah this year sanadkani. marka wax adiga ka xiga malaha labadaas wiilada guuleysteen adiga guuleysan kartaa labadaas kale wiil kuma aysan guuleysan. dad kala badan oo aan maqlay ay jiro ku baxay scholarship kan oo Ingiriis ku tagay. so adigana nasiibkaaga brave apply gareyso. sidoo kale su'aasha isweydiinaysa waxay tahay wax shahaado English miyaa liiga baahan yani IELTS mis TOEFL labadaba wax lagaaga baahan yahay malahan yani scholarship marka apply gareynaysid waad xariisanaysid wax kaaga ma baahan yani application ka marka xariinaysid IELTS shahaadadeeda cadeynaysa in English kaaga fiican yahay level kaaga exam kaas soo qaadatay kaaga ma baahan. laakiin hadhow jaamacadda marka tagtid jaamacadda ayaa kaaga baahnaan doonto taasna dib ma lahan. jaamacadda marka tagtid waxa waa anytime imtixaanka soo fadhiisan kartaa oo aad gali kartaa. imtixaankan imtixaan adag maahan waxa way aada isku dhibnaa markii la loo IELTS iyo TOEFL markii la aada u cabsana yani kaliya ma dadka dhan cabsada laakiin exam aad u fudud waa English ka ku soo qaadana dalkeen English waa wax problem jiro. so ha isu dheernin formkan marka xariinaysa wax ka baahan IELTS ina ku xariis shahaado oo shahaadada waxay ka baahan jaamacadda marka aad tagtid markaasna waxa maray Ingiriis tagtid jaamacad tagtid imtixaanka soo fadhiisan kartaa qaadan kartaa. so marka ka soo laaban shahaadada IELTS ka waxa kale oo xiga waxa waay oo aan rabay inaan idin xasuusiyo marka apply gareynaysid scholarship kani waxa jira 3 jaamacad inaad application ka yani form ka buuxinaysid inaad ku dirtid. qolada scholarship ka iyaga jaamacad kuma apply gareynayaan oo admission kaaga soo qaadayaan. waxa laga baahan yahay adiga inaad apply gareysid jaamacadaha aad website-ooda booqatid jaamacadaha Ingiriiska ugu macquulsan saddex jaamacad aad kala dirstid mise hal maado inaad 3 jaamacad anyway adeeg ku taala waxa dalbanaysid yani laakiin waxay kaaga baahan yihiin ugu yaraan 3 jaamacad inaad ka heshid admission. so marka iyana kuma xareynaa adaa laga baahan yahay xariistid
marka sida isleedahay hadda maskaxda ku jirta waxay tahay sida loo xariistaa iswareerinin we are here for you adiga ay halkan ku joogna inshallah next video ku xigo waxaan soo gelin doonaa sida loo xariisto scholarshipda yani jaamacadaha dalka Ingiriiska yaalo sida loo codsado inshallah video ku xigo noqon doonaa si nadiif ah inshallah idinku tusi doonaa jaamacadaha ugu fudud aad ku xariisan kartaa dalban kartaa admissionada sidoo kale marka inta ugu muhiimsan horta waa intaas just sidoo kale mida idinka ilow scholarshipka yani ku guuleysigiisa 100% waxay ku xiran tahay inaad ka hesho jaamacad admission muhiimad koowaad midaas maanta application kan si wanaagsan u buuxi qofka uu number 1 noqo yani sida u soo buuxisay sida qoraalka u soo qorto wax walba gal meel fiican application kan si fiican u buuxi laakiin haddana wili admission dada jaamacad keysana wax macna kuma sameynayso waxa waaye dadkaas kuma siinaan scholarship marka muhiimadda waxa waaye inaad admission jaamacad keeshid over yani warqad aqbalad inaad keeshid jaamacad waxay noqon kartaa mid conditional yani iyo mid unconditional jaamacadaha marka admission ka helaysid waxa waaye laba waxay ku dhihi karaan unconditional yani waxa waaye warqadaada overka oo jaamacadda waan ku siina oo yani wax problem iyo warqad kale kaama baahan sidoo kale waxay ku dhihi kartaa jaamacadda way ku aqbali kartaa laakiin waxa waaye warqada mesela imtixaanka Englishka ku xirtaa laga yaabo ay ku dhahdo iyadoo adooda imtixaanka warqada examkaas soo gudbinin Englishka kuma siineen warqada admissionka taas waxa la condition marka inshallah waa isla fiirin doona jaamacadaas wax problem ma lahan laakiin isku day ina wax badan apply galis jaamacada badan apply galis isku day marka admission haday shit macnaheedu waxa waaye 100% scholarship ku haysta طبعا way adeegin scholarship da admission sida loo helo laakiin isku day dadka Soomaalida oo apply gareystay u soo baxday adiga wax farqi ma dhaxay alright and documentida u baahan tahay inaad ku apply gareysid scholarship kan waxa kamid ah oo ina haystid oo muhiim ah passport ka ina haystid ko sidoo kale shahaadooyinkaagi diploma yani dugsiga bahalkii jaamacadda heerka ay kuwa jaamacadda bachelorka ina haystid sidoo kale reference letter yani qof warqad damiin ka noqdo yani laba qof laga baahan professorada jaamacadda ku dhigay laba qof kamid ah iyo sidoo kale work experience ina meel ka soo shaqeyso muhiim waa midan sidoo kale waxyaabo ay ku tixgelinayaan ayaa kamid ah scholarshipka qofkan qof experience leh ma yani khibrad leh soo shaqeeyay ma yahay sidoo kale way fiirnayaan midaas inta ugu muhiimsan horta waa intaas inaad passportka haysid shahaadada jaamacadda haystid undergraduate ka bachelor ina haystid yani scholarship kan ma aha yani mid bachelor waxa waaye dadka waxa xareysan kara oo dhameeyay heerkooda koowaad jaamacad yani bachelor degree dadka ka soo baxay 4 sano jaamacad soo dhameeyay ayaa xareysan karo waa scholarship kan waa masters yani master degree waa so shahaadooyinka diyaarso passportka diyaarso reference letter warqad diyaarso qof damiin ka noqdo professoradaada warqad fiican ka qoro warqad fiican ii soo qordhe even haday time hini hata adiga warqadaha qor u tag saxiixooda iyo timbaraha jaamacadda halaas u baahantay bis hiidan howl fudud waa even haday iyaga time ku heyneen adiga qor warqadaha u tag stamp isar saxiixa isar wax second qaadinaynin waa sidoo kaleeto work experience yani ina soo shaqeysay ka baahan aynu waxa waaye Soomaali dhalinta badana jaamacadda waa dhameena yani shaqan si loo walaade u adeegtay so halu caawi yani xafiisyada dawladda lagu golo xafiisyada warqado ka soo qaado ina ka soo shaqeysa cadeynayso damo yani meelaha ka soo shaqeysay ee badan yihiin damo waxa fursadaha janjanska ay guuleysan scholarship ka badanaysa marka isku day inaad fursad badan aawurtid si aad ugu guuleyso scholarship kan xafiisyada dawladda asxaabada xiriir leedahay tag inaad ka soo shaqeyso warqad cadeynayso ka soo qaado adiga wadan ka soo shaqeynay hadan waa helay dabcan Soomaaliya musuqmaas manay dhamaad so isku day falan warqadaas inaad soo qaadatid nin dawlad u soo shaqeeyay oo ku soo dhaweynay iyaga weer waan wax dad noocaas oo kale markii intaas ku soo tagay sidoo kale waxa xigto su'aalaha jiro oo laga jawaabayo
oo la qoray yani essay jiro oo ilaa 500 words ka kooban midkiiba ilaa 4 su'aal oo malayna. So su'aalahaasna waxa waaye aad u muhiim yani English ciyaaleed ku soo qoran oo al-cimri iyo brevadii yariiska aga soo baratay. English academiga loo baahan yahay. Writing skills ka inay dadkan la yaabaan. Scholarship darteena guulis waxyaabo lagu qiimeeyo waxa kamid ah writing skills ka. So isku day inaad su'aalahaasi si fiican ugu soo jawaabtid. Waxa waaye su'aalo u baahan waa in badan aad ku laabatid oo aad indhaha marisid oo si fiican aad u qortid. Even adiga hadaadan aqaanin hata Englishka u fiicnaa writing skills ka dad kale gaar dad taqaanid English ku fiican ay jiraan gaar u tag iyo qordhi su'aalahan si fiican u jawaab. Sidoo kale waxa isku daydaa su'aalahaas markaa ka jawaabaysid form-kan waxa ku apply gareynaysa inay isla hadaan wax ka baxsan. Mesela waxaad jaamacadaha waxa ka dalbatay kulliyada nooc kale sida engineering ka dalbatay isa caafimaad meeshan warqada markii qoraysid su'aalahan ay ka jawaabaysid waxa way wax kala ku qortay aan mustaqbalka ay future-ka maxaa rajaynayna waxaan horumar noocay ka gaari wax noocaas amalina ina iskhilaafan lambaan waxa meeshan ku qortay form-kan waxa ku qortay yani iyo warqadan su'aalahan ay ka jawaabaysid inay isla hadaan loo baahan yahay sidoo kale sida rajaynaya xogta ugu muhiimsaneed waa hadasheen isku day inaad videogan isku day fadlan inaad dhameystid waxaan bilaaweynaa insha Allah hadii sida loo xareey formka loo buuxiyo bismillaah marka koowaad waxa booqanaysa website-ka qolada bixiso scholarship-ka waxa dhehaysa www. wakana uu soo bixi www.chevening.org website-ka saabuqanaysa then section kan apply ay ku qorantaa ku dhufanaysa then meeshan waxa ku qoraysa country-ga oo territory-ga ay ka soo jeedid so mesela Somaliland ka soo jeediyada waa ka helaysa dabcan yani Somaliland Soomaaliya labada meel meesha ku dhow adiga garanay dabcan Soomaaliya ku dhufo waxa doonaysa maxay tahay scholarship aan doonaya fellowship ma doonayo scholarship ku dhufo bal raadi Soomaaliya ma furantay maxariisan karnaa research day here we go way no furantay open for applications until 2 November ilaa 2 November ay no furantay wili waqti badan ay haysanaa hada bishii 8 ku jirnaa wili bishii 9 bishii 8 ku jirnaa sax waqti badan haysanaa November ayuu nu xirmay scholarship so we know free scholarship ina xareysano marka ay suuleernin documentiyada waxyaabo ku sheegay diyaarso so then waxa leenahay apply qaybta hooseysa imo okay hadii aad hor registration u sameysay application-ka laakiin email-ka iyo password-ka hor ka gashanaysa laakiin hadaa cusub tahay aniga hadda waxa waaye 0 soo bilaabeyna yani application-ka bilow ilaa dhamaad yani qof hadda ugu horeyso oo xareysanayo amal nafsada amal ka soo qaad sidaas amal oo xareyn doonayo marka meel waxa marayo meelaha marayo si fiican ila soco bini'aadan sidoo kale waxa qaldi kara nafisheedan ay ugu xiriir so hala yaabin yani hadaan wax qaldi sidoo kale inshallah aan bilown registration register here meeshan ku dhufo then waxyaaban private policy cooking policy hadii time waa is aqri like wax muhiim ah laakiin accepted meeshan qaybtan accept ku dhufo here we go iska aqri instructionadan aan soo koobo yani inaad buuxisid formkani ee online-ka isku day sidoo kale meelaha calaamadaha guduudka saaran yihiin meeshan magacan kale calaamada guduudka saaranta email-kan oo kale waajib ku tahay inaad qorto laakiin waxyaabahan oo kale yani optional waa ka tagi kartaa yani waajib ku ma ahan last name-ka waxyaabahan oo laakiin iska buuxi fadlan sidoo kale magaca aad meeshan ku qoraysid iyo passport-ka magaca ku qoran oo ku qoran isla haadan fudud magaca iskhilaafo askari isla meeshan waxa ku qortay Maxamed ku dhigtay meeshan passport-kan waxa ku qoran by English ay ku qoran Muhammad ku qoran
probleme kaa imaanaya. Marka inaa si fiican isku daydo meeshaan isku day inaa yani si fiican u dignootid Soomaaliga nigu dhum. Anyway, bismillah aynu bilowno. Master adiga garnaa waxaa tahay dumar. Anyway, master then waxaa waaye meeshaan sidoo kale optional waaye. waxaa waaye waajib ku imaan inaad ku qortid wax kale. haddaad doonaysa master maahan, haddaad doonaysa boss, haddaad doonaysa engineer, waxaa rabtid ku qoro. yani title waaye. مثلا engineer Cabdullaahi, مثلا master Cabdullaahi, master Yusuf, master Cabdiraxmaan, engineer Cabdiraxmaan, engineer Cabdixakiim. sida magaca waxaad doonaysa inay dad title ahaan yani ay kugu wacaan professor Mohamed camal. marka iskaga qoro, wax problem ma laha. laakiin master aa ka doorbidaan liigu qoro. so مثلا magacayga waxaa waaye kasoo qaada Cabdullaahi, master Cabdullaahi. last name-kayga waxaa waaye Mohamed. magac kalma doonaya oo yani oo liigu wacan no mara waxina wax faa'iido ima sameynaysa. iska daa meeshaan email-kaaga lefa email-kaana igala soo xiriirin haddaa meeshaan ku qoray fadlan. email waxaa waa aan scholarship marka ku xareey u sameeyay darteed haddaan sameeyay naftirkiisa. haddaad doonaysa inaad ila soo xiriirto email ayaa jiro oo YouTube-keena uu leeyahay somyouthscholars@gmail.com. igala soo xiriir email-kan fadlan. igala soo xiriir midkan waa mid aan example ahaan ugu soo qoro meeshaan. okay, confirm email-ka ku celi mar labaad. scholars@gmail.com. yeah, sidoo kale midaan additional email kale ma haystaa. yani hadhow email-kan haddii lagaa waaya email-kan lagala soo xiriiro ma jira. hadduu jiro waxaa waaye la soo xiriir email-ka waxaan qalday. okay, sidaan waaye, sidaan rajaynaya insha Allah wax maana qaldin. so telephone number-kaaga, telephone number iskaga qor. I don't know, telephone example ahaan iskaga qoraya meeshan. telefoonkan ani email ku qoray waxaa waaye telephone number iska random yani aan iska gelinayo hadda. مثلا telephone number مثلا number dalka aan geliyo 252616 ده 884556. I don't have any idea. ما قانتا حوي قفك iskala taam garana iska geliyo. tusaalahaan idin ku tusaaya sidaas darteed san ugu qoray. telefoonka la jiro home phone la jiro Sky ID hadaa haystid geli. so address aan gelin meeshan and address kasoo qaado waxaan degnaa Taleex kilometer 4 address scareless iska geli kilometer 4 address iska waxaa iska booja iska geli address fiican iska geli adiga. city Mogadishu province بنادر طبعا بنادر. zip code postal code 252 جلي. country territory of residence طبعا Somalia. then good information iska hubi magaceeda aad gelisay, emailka aad gelisay, telephone numberadii, addressidii aad gelisay. ilowin fadlan submit ده dir. alright, then emailkaaga kugu soo diri doona link uu noo soo dhacay. waa kana emailkeena noogu dhufo. emailka naga xir, new password geli. passwordkiina waan gashtay never de. so waxaa un ku jirnaa weli registration ayaan u sameynayna applicationka. weli waxaa waaye formkeena saxda maana bilaawin weli. then waxyaabaha noo baahan inaan dhammaystiraynaa wixii uu noo soo wadageliyay title-keenii, magaceenii, telephone number-keenii, address-keenii, country, state, province, region, Mogadishu. so
waxaa imaataa qaybtani date of birth, waqtigaa dhashate, day 05 laga yaabo inaa waxawaaye isha ay ku dafto aadan waxaan filinin ee aragtid. So safe dheh si aa u aragtid da-daada, calculationka da-daada, yani waqti da-daada intaa jirtid si aa u aragtid. So click save to calculate your age after your date of birth has been entered. Save dheh. So hoos u deg. Yeah, da-daan jiro way soo baxay 23. Okay, country, territory of citizenship. dabcan Soomaaliya, wadanka aad u dhalatay oo aad dhalashada ka haysatid geli. Do you hold dual citizenship? ma haystaa yani qof laba baasboor leh ma tahay? mesela Soomaali, Turkish ama Soomaali baasboor Soomaali haystaa, sidoo kale baasboor Turkish haystaa, labada baasboor ma haystaa. aniga ma haysta Soomaaliya, hal baasboor Soomaali haystaa maya, ma haysto. Country, territory of birth, wadanka ku dhalatay Soomaaliya. Somali ilaahay dalkan u barakay. amida. State, province, region of birth Mogadishu, طبعا عاصمة ما كل شيء. Specify the length of timing living in the country territory of the current residence. ما يقصنا كونه لدي يعني ماشان وضن كانت كلرته ما يقصنا كونه لدي. طبعا 23 years كونه لدي سامو لش إلا هذا كونه لهي. أوكي هذا safe. markaan sidaan u dhameeno waxaa ku dhufataa validate profile. waan bogna xogtii oo noo baahnay waan gelinay. So here waxaa waa registration hadda waynu sameynay. So click here halkaan ku dhufo. halkaan markaa imaano waxaa waa registration waan sameynay oo formkeeni wuu noo diyaarsan yahay. waxaa noogu baahan inaan bilaawno oo aan buuxino formkii. So markaa inta joogtid hadda waxaan oo dhan waa eber in progress application. wax application dhax ku maray hadda ma jiro hol ka socoto. Submitted waxaa dirtay ma jiro oo la suuga yani in la review gareeyo oo la eego oo la baaro ma jiro. Unsuccessful application waxa hadda unsuccessful yani ma jiro, sidoo kale 0 way. Conditional selected ma jiro wax hadda doorashay sidoo kale. marka inta joogtid waxaa leedahay waxaa fiirin kartaa waxyaabahan oo dhan. application history-ga waa fiirin kartaa. wax application history ma jira maya. dib ugu soo meesha hadaad inaad kusoo laabatay daa u baahantay meeshaan ku dhufo my application ku dhufo wiil meeshii ku keenaya. sidoo kale interviews meesha locationka interview ku gali doontid meeshaana ka baaranaysaa. wili waxaa waa scholarship meeshan ku soo bixin interview wax asaasan lama gaarin. applicationka meeshii ku laabo. so marka aad joogtid hadaa inta ku dhufatid waxaa waaye waxaad application process ku maray ma jiro wili eber way. so waxaa ku dhufanaysaa meeshaan available open awards. wax available ma jira hadda aan xareysan karo scholarship ha meeshaan available awards kan ku dhufo uu ku soo saara marka waxa hadda xareysan kartid. Soomaali sidoo kale waxaan xareysan karnaa hadda scholarship kani master degree gan oo xirmi doona ma taariikh 2 bishka 10aad uu xirmi doona. so scholarship waa kana oo xareysan karnaa hadda. then information da u baahantay info ku dhufo waxa da wax akhris u baahantay waa akhrin kartaa. Available countries availability Somali, Somaliland labada dal barwaaqaysna way xareysan karaan. waxaa leedahay marka apply ku dhufo meeshaan. so here we go. Eligibility questionnaire. Are you eligible to apply for Achieving Award? su'aalahan ka jawaabayna oo inoogu baahan inaan ka jawaabno. su'aasha koowaad la weydiiyay waxa waa are you a citizen of Achieving eligible country territory? ma tahay qof yani xareysan kan scholarship kan wadan xareysan kar ma soo jeeda? ha Soomaaliya ka soo jeeda. Are you a citizen of Achieving eligible country or territory? Yes. Dimension. Will you return to the country or territory through which you are applying for Achieving Award for a minimum of 2 years after your award has ended? يعني markaad soo dhameysid
scholarship kan deeqdaani waxbarasho markii lagu siiyo labada sano ay soo dhamaato dalka muu soo laabanaysaa hadii dalkan uu soo laabanaya maysanayn. Do you have undergraduate degree that will enable you to gain entry onto a postgraduate program at a UK university? This is typically equivalent to an upper secondary class 2 out of 1 honors degree in the UK. يعني ما هيستا wax shahaado bachelor يعني undergraduate degree taasoo ka caawinaysa inaad heshid master degree dalka UK يعني jaamacadaha UK ku yaalo ma haysta waan haysta. So mid ogaada jaamacadaha hadda ani intaan garantay aqaano waxaa loo wiil jaamacad City ka bixin sidoo kale dad la ii sheegay jaamacadda Muqdisho ka baxay sidoo kale dad jaamacad Simad ka baxay la ii sheegay inta maqal halaas waa يعني هذا بنادر كسو baxday جزيرة كسو baxday in jaamacada كسو baxday يعني fadlan isku day waxaan nasiib way inaad heshid laga yaabo xareeso waxa wax lacag laga kaagama baahna foomkana buuxinaysid anani ka caabinayo hada u jeed videogan daawo sida wadada maray mar buuxi waa intaas waxa kale xigo su'aasha kale noo xigta fiiri. Do you have the minimum work experience as stated below? ugu yaraan waxaa laga baahan yahay inaad experience 2 sano ugu yaraan aad shaqayso ay haystid waan haystaa ma yagelin laakiin cadaynay ka baahantay warqadihii inaad haysatid isku day foomka meesha aad soo shaqaysay inta ka shaqaynaysay waxaan inay ku qorin are you at least 18 years of age ugu yaraan 18 jir ma tahay Will you have a complete your undergraduate degree before the end of submitting this application? Will you have ما يسند doontaa يعني shahaadadii jaamacada before the date of submitting this application intuusan application kan يعني scholarship kan uusan xirmin gacanta ma ku haysan doontaa scholarship يعني bahalkii shahaadadan gacanta ma ku haysan doontaa يعني ka soo qaad waa adigoo hadda buugi difaacday oo shahaadi sugayo shahaadi waxa laga baahan yahay in koobi tobanad u xirmi doona scholarship bish koobi tobanad hadan bish 8 ku jirna isku day inaad ku heshid yani ilaa bish 9 bish tobanad gudaheeda aad ku heshid isku day shahaadooyinka marka si aad intuusan xirmin scholarship ka oo u faa'iido fursadan u faa'iideystay. Are you applying for a scholarship for a course of study commencing in UK Anthem term of 22? Yes. So meesha markaa joogtid submit maxaa kaloo noo xigo questionnaire way badan yihiin su'aasha kale ku xigtaa waxay tahay do you aspire to be or are you already a leader desire maker opinion former in your home country dabcan waa isliidan adii yani qof fikrad keenay hogaamiye wanaagsan yani dalka ee dad badan ilgaar ku hayaan ma tahay yani dabcan waa are you a British citizen British miyaata citizen ma imi yani Somali Maxmed baan have you previously studied in UK with the founding form as a UK government funded scholarship may wiligii waxa way maba scholarship wiligii maan ka helin dalka UK haddana igu horeyso waxa way marka may dhameeshan su'aalaha iska fiir fadlan meel hadda midan are you a British citizen hadii loo dhaho dhahay ka waran qalad waxa way meel kale ku leeyahay foomka marka iska ilaali su'aasha kale noo xigta waxay have you previously studied in UK with funding from a UK government funded scholarship wiligaa wax yani scholarship meesha yani oo dawladda UK wili scholarship bixinaysa ma apply garayso ma ku guuleystay da guuleystay waa kay da guuleystay ma yani ma waa yani wiligeena maanta hadda igu horeys have you been employed in a part-time temporary or internship role since July 2019 by UK government the British Council or Association Commonwealth qoladan meeshan ku qoran wax yani shaqo ku meel gaare mid oo joogtay iyo wax internship shaqo tababar wili ma ku siin yani role since 2019 hadii ku siin adiga garanadeen ku siin may siin wiligay
have any of you immediate relatives been employed by the above organization since July? immediate relatives يعني wax qaraabadaada wili wax meesan yani organizationadan wili may ka shaqeeyno shaqaale may ka noqdeen hadii jiraan hadii jirin may dabcan maya iska geli save draft de submit pre-screen de alright hadda waxaaba qaybtii background waa soo dhameeyay sida rajaynay may qaybtii waxa soo dhameeyay oo questionnaire ka soo dhameeyay hadda background su'aalahan aan ugu leeyahay waxyaabo qaarka inaad u muhiimsan inaad hadda ka jawaabno meeshan waxa ka dooran doontaa qaybtan aan bilowno hadda waxa asaan u soo galiyay waxaan xogta waxay registration ku bilownay magaceygii da'adan jiro waxyaabaas so prefer interview location meesha ku gelis maxaa Muqdisho dal kale ma ba ii soo bixin yani meel kale hadaan helay waa helay laakiin Muqdisho bas aan hadda u jeeda soo kale wax kale hadda meeshan iyaga noo soo wada geliyeen alright education meeshan fadlan iska akhri sidoo kale adiga aniga waxa buuxitaanka hore ka bilaabaya waxa we are running out of time. Enter your education details. Please click the save draft button at the bottom of this page to show the list education entry below. Alright, I need to save ina wuxuu ka wada meeshan. Alright, hadda waxa gelinayna xogtii waxbarashadeeni kullu meeshan aad please note you will not be able to submit your application if you have more than 15 submitted education activity. Alright, measure is this entry for undergraduate or postgraduate qualification? Sidoo kale hadii aad master sidoo kale aad dhameysay jaamacadda labaad master degree ay haystid sidoo kale waa apply gareysan kartaa scholarship yani wax hada master haysta yani master kalma apply gareyn kartid qof ku dhahay qofka xigman yani wax xareysan kartaa sarjana waa fahanteen yeah. And is this entry for undergraduate or postgraduate qualification? Yeah, waxa way waa undergraduate qualification yani waxa haysta shahaado bachelor degree ayaan haysta way oo waxaan doonayaa master degree ayaan doonayaa. Alright, and select country or territory of study meesha waxa ku baratinteed Soomaaliya. Alright, confirm country territory of study then meeshan ku dhufo. Alright, and please note you will not be able. Alright, markii ka soo tagno university college schoolki yani jaamacadda magaceedii ka soo qaad waxaan dhigtaa ka soo baxay maybe Banaadir State University wiligii maanan tagay manaan arkin example aan soo qaatay bis and date form date 2 sidoo kale degree type degree subject course title. Alright, and waxaan soo bilaabay maybe ka soo qaad okay 2017 ka soo bilaabay waxaan dhameeyay bishii 7 2021 ayaan dhameeyay yani hadda dhameeyay yani sanadkan lagu jiro gudaheedaan dhameeyay waa jaamacad hore. Degree type and adiga garanay meeshan degree-ga waxa soo qaadatay meeshan waxa ka soo qaatay adiga garanay mesela waxaan soo qaatay I think BSc agriculture waa sarjana midan maybe agriculture ka soo bartay Banaadir. And degree subject agricultural science and soo bartay. Okay, course title waxaan ka dhiganaa course title agriculture ka dhiganayna meeshan waxaan ka dhiganaa agricultural science course title keega waxaan ka helay waxa waaye maybe scale-ka lagu jaamacadda waxa waaye 100% 100 scale noocee waa scale lagu qaybiyay 0 ilaa 10 miya sarjeenaya adiga GB ahaan GB geli GB
GB ahaan loo يعني resultiga waxaan helay 4 out of waxaan helay maybe 3.5 يعني 3 GB يعني إلا 4 waa jaamacadaha laakiin ana waxaan ka helay 3.5 يعني 3.50 waa resultigii yani ayaan helay. So review country territory study submit and add new hadaa rabtid mid kale inaad ku dirtid waxaa waay submit aad dhigi kartaa waxaa waay mid cusubna ku dari kartaa sidoo kale submit aad dhigi kartaa maadaama wax kale aan ku daraynin submit deh. Okay, alright then save draft deh. Alright, save draft markaa dhaadid detailskaaga jaamacadda aan soo gelin wuu noo soo baxaya yani save draft hadaadan dhihin markii aad apply geli markaa xariisid waxaa waaye save draft nooma soo baxaya yani inta kama arkaysid hada enter your education detailskaaga markaa save gareyna waxaa waaye wuu noo soo baxay meeshaan noo soo baxay. Alright, work experience fadlan work experience meelaha waxaa waa ugu adag meeshaan xariistaanka scholarshipkan fadlan si taxadir leh sidoo kale meeshaan iskaga fiiri. Are you currently employed in a full or part-time work or a voluntary or internship? shaqaale buuxo miyaa tahay shaqaale yani waqti soo galo yani waqti yar yani part-time ahaan mise voluntary ana u shaqeysaa oo si free mise internship shaqo tababaraa so adiga garanaya yes no waxa dhis adeeg ku taala maybe yes aan dhahno waan shaqeeyaa. Please enter work experience details work experience ga meeshaan geli. Please click the save draft button at the bottom of this page si ay yani aad u heshid sida midaan oo kale inta ay kaaga soo baxay si aad u aragtid xogta aad soo gelisid meeshaan inta inay kaaga soo muuqato fadlan save draft meeshaan save draft ku dhufo. Alright, and I'm getting work experience meeshaan meelaan ka soo shaqeeyo and employer organization name meeshaan ka soo shaqeeyay aan gelino meelaan ka soo shaqeeyay waxaa ka mid mesela waxaa ka soo shaqeeyay Banaadir University jaamacadda naftarkeeda ka soo shaqeeyay kasoo qaad Banaadir University ay ka soo shaqeeyay job title-kaaga position-ka aad ka joogto jaamacadda aad qabanaysa maxay ahayd yani and waxaan u shaqeynay jiray kasoo qaad waxaana job title-kayga wuxuu ahay mesela assistant professor ka caabin jiray shaqo noocaas ay qaban jiray waxaan leenahay assistant professor kasoo qaad assistant professor ana u shaqeynay jiray then confirm deh. Alright, waxyaabaha kaasii dhiman geli date taariikhda bilowday inaad ka shaqeysid waxaan kasoo bilaabay shaqitaankan maybe taariikh 13 bishii 2 2018 maybe yeah just maybe 2018 aan kasoo bilaabay ilaa waxaan shaqeynay jiray bishii 5 taariikhda 5 bishii 12 ilaa iyo 2020 aan kasoo shaqeynay jiray. Hours per week isbuuci meeqa shaqeynay jirto waay isbuuci waxaan shaqeynay jiray meeshaan sidoo kale iska xisaab fiican yani oo macquul leh geli waxaan shaqeynay jiray maybe kasoo qaad isbuuci 70 saacadood maybe aan shaqeynay jiray 70 saacadood aan shaqeynay jiray Soomaan mise 56 saacadood aan shaqeynay jiray 56 saacadood per week yani maalinta haddii maalintii isbuuci yani per week aad shaqeynay jirtay 56 macnaheedu waxa way maalintii 8 saacadood aad shaqeynay jirtay sidaas ay la mid tahay. Okay, the total will be calculated once you click submit yani waa arki doontaa yani totalkaaga markaa submit aad dhahdid. Alright, hours worked per week
56 aan shaqeyni jiray. Okay, employer type and full-time employment. Please provide a brief summary of your responsibility here. waxyaaba meesha ka qaban responsibility yani wax xil saarneed oo qadamin jirta meeshan briefly wax geli. Alright, adiga garan kara waxa gelinaysid. Aniga waxa waa tusaale ahaan maadaama aan iskaga qoray. adiga garna wax gelina tusaale uu ku siinaya. Alright, sectorka public jaamacad waxa jaamacad private ay. Alright, submit ده. Alright, employer ID. Okay, so local save draft ده. hoos on usocno. work experience waa noo soo geli 56. Alright, you see. Okay, wili noo filno work experience ina aan ku darno maadaama ay naga rabaan ugu yaraan 2 sano shaqo experience ina naga nagu baahan ku dar add work experience leh. sidoo kale meel ka soo shaqeyn jirta ma jirta. meel kale aan ka soo shaqeyn jiray waxa ka mid ah maybe waxaan ka soo shaqeyn jiray tusaale ahaan school la yiraahdo al abadir high school. Al-Abadir high school aan ka soo shaqeyn jiray. maxaa dhigi jiray math teacher macallin mathematics ayaan ahay. Alright, laga soo bilaabo goormay ahayd bishii 8 in taariikh 8 bishii 10 bishii 10 2016 ilaa iyo 06 ilaa iyo waxaan ka soo shaqeyn jiray 2019 ay ka soo shaqeyn jiray. sidoo kale shaqada waxaa maybe ka soo qaad waxaan shaqeyn jiray isbuucii maalintii 5 saacadood isbuucii meeqay noqonaysaa hadda isbuucii maybe 35 ay noqonaysaa. Alright, employer type waqti waxay part time ay shaqadeyda meesha adiga garan kara waxa gelinay laakiin waxa isku dayda please provide a brief summary of your responsibility. yani waxa ka qaban jirtay iskuulkan oo kooban oo yar meeshan ku qor waa fahant Soomaan. Alright, iskuulka wuxuu ahaa school private oo ahay sector private. submit ده. sidoo kaleeto save drive ده. okay, sidaan rajeynaya hadda waan buuxinay work experience yani waxaan ka soo shaqeeyay Banaadir University Al-Abadir high school ka soo shaqeyn jiray. okay, sidoo kale waan geliyay jaamacadii education detail waan geliyay meeshan. alright, then waxaan imaanaa essay. questions kan ka hadlayay waa questionadan meeshan. In this section, you are asked to answer a series of short essay questions on the following areas: leadership and influencer, networking, studying in UK, and your long-term career goals. Aniga kuma fasira Englishkan waa garanaysa qof master apply garanaya yani Englishka waxa waaye ilaa advanced level ate. Fadlan isku day inay su'aalan ka jawaab. Su'aashan koowaad leadership and influencer ku saabsan tahay relationship building and sharing learning ee ku saabsan tahay midaan studying in UK. sidoo kale career plan. fadlan haddaad danaynaysa scholarshipka inaad guulaysato midda koowaad essaygan su'aalahan inaad su'aalo academic writing yani si muhiim ah inaad u qorto isku day. iyo sidoo kale
jaamacadaas saddexda jaamacada dalbantoodina jaamacadaas apply gareysa isku day horaan yidhi jaamacadaas sida loo apply gareynayo video ka sameyn doona insha Allah waan soo dhigi doona video ku xigu noqon doona laakiin su'aalahan inaad dad u tagtid ka caawiyaan isku day su'aalaha sabir hataa ka qaado hadda sawir ka qaado su'aasha koowaad waa tana Chevening is looking for individuals who will be future leaders or influencers in their home countries. Explain how you meet this requirement using clear examples of your own leadership and influence skills to support your answer. Minimum word count 100 words, maximum word count 500 words. Su'aasha koowaad waa fahantay su'aasha labaad sidoo kale waa tan kuma akhrinay fadlan sawir ka qaado isku day inaad qortid su'aasha saddexaad sidoo kale waa tana indhaha si fiican u mari sawir ka qaado su'aasha afraad waa tana sidoo kale indhaha mari sawir ka qaado all right sarjana waxa way fahantiin su'aashan all right and waxaan ugu xigaan imaanayna application information qaybtan imaanayna waa qaybta yani university application qaybta waa jaamacadihi aad yani apply gareysay oo aad aqbalada keysatay inaad meeshan gelisid yani haddaad aqbalad keysina like aad apply gareysay aad sugaysid even hataa waad gelin kartaa yani wax problem ah isweernin meeshan hore in kugu soo sheegay waxaan waa adiga meeshan waxa buuxin doontaa akhbaaraadka jaamacadaada iyo UK immigration status fadlan yani waxyaabahan si fiican iskaga aqri su'aalahan bal saddexda meel si fiican u fiiri It is essential that you research and identify 3 different courses before submitting your Chevening application. Alright, kasooqad 3 different courses at the same university with similar course title. 3 different courses, 3 courses kala duwan dalbatay. At the same university, isla jaamacadi with similar course title. 3 different courses at the same university with similar course title. Then waxaad dalbatay sidoo kale maybe kasoo qaadana waxaad qaybtaan maybe 3 different courses with similar course title at 3 different university. adigoo dalbaday 3 different courses 3 koorsooyin kala duwan with similar title hal ciwaan isla haystaan laakiin 3 jaamacado kala duwan ka doortay sidoo kale maybe waxaad dalbatay 3 different courses 3 koorsooyin kala duwan at 3 different universities 3 jaamacado kala duwan ka dalbatay all with the same course title. Then ana waxa kugu tan ina midan sameeysto waxaad dalbataa 3 koorso waxaad dalbanaysaa 3 different courses 3 koorso kala duwan at 3 different universities 3 jaamacado kala duwan mesela Muqdisho Simad and City 3 jaamacad 3 koorsooyin kala duwan kala dalbo all with the same course title oo course title kooda hal dalbo okay mid uu macquulsan waa mid laakiin tan dalbatay 3 different courses 3 koorsooyin kala duwan dalbatay with similar course title like hal course title is less than at 3 different universities Hawaii wareer waa tan iskida hadhoon application ka saameyn kugu yeelanaysa yani hadda mesela tan waxay ka 3 different courses dalbatay at 3 different universities jaamacado kala duwan all with the same title hal title isla istaan yani waxaad dalbatay engineering ka dalbatay oo waliba qaybta section waxaad ka dalbatay oo title ka waxa sida loo dhiso qaybta bridgeska bundooyin sida loo dhiso dalbatay taas oo amal ka soo qaad marka waxay ka caawinaysaa hadhow meesha markay imaatid questionnaire kan markay imaatid yani goalkaaga muxuu yahay career plan-kaaga meeshan maxay tahay yani goalkaaga hadafkaaga muxuu yahay markay imaatid su'aashaas way ka caawinaysaa yani jawaabteeda inaad si fudud ugu jawaabto laakiin 3 different title dalbatay jaamacada kala duwan titleadooda waxba problem ka imaan marka si yani xog leh iska fiira iska buuxinin adoo yani jeedo yani concentration kaaga focus kaaga leh buuxi all right add university application add university leh jaamacada maybe waxaad dalbatay maybe Cambridge
Cambridge or Cardiff. Maybe Cardiff ab jaamacadan aad dalbaday. Confirmed. Alright, marka saddexda jaamacad aad dalbatay ha ku kalaadeen hadaf. jaamacadan waxay waay yani waxay ugu jiray hadafkayga saddexaad aan yani hadafkayga kuwa jaamacad waxa dalbaday mesela London Economic Business jaamacadaas dalbaday kuwaaday ugu jiray yani hadafkayga kuwa jaamacadaas inaan tago waay yani number 1 ugu jiray may jaamacada labaad waxa waaye maybe Oxford waay qaybta labaad ugu jiray jaamacadan koodeeda waay jaamacadan labaad si liisi مساعدي تن واي اوبشن كو دمبي او جامعه سدحد مع مثلا مسكحانتاada يعني lahow يعني قول jaamacadaha iska dadban يعني jaamacada ku hamweynta arjini sidii jirto ya jaamacadaas dooro so course list unavailable please try in 5 minutes as the list course in overnight update alright jaamacada يعني course list unavailable يعني koorsada aan dalbad يعني koorsada يعني adaa agriculture sameyn يعني list email ku jirto laakiin waa bedeli kartaa yani yani career-ka hadda aad agriculture soo dhigtaan graduate marka master maanta waxa ridid waa ka dhigan kartaa yani wax problem ma lahan marka waxa ridid hadda rajaynis ka dalbo mesela accounting and finance waa arawa then ranki igu jiray jaamacad saddexaad igu jiray yani hadii koowaad labaad soo way saddexaad tan si la ECN qolada scholarship-ka have you already applied to this course and marka inta fiiri yani course-dan hormu apply garayso jaamacada ma ka apply garayso yes I have a conditional offer yani yes hawa apply go I have a conditional offer yani waxa way complete yani conditional offer way conditional offer yani wali siya oo scholarship yani jaamacadu apply garo admission waa siisa laakiin wali waxay iga baahin documentiyo aan diro ay iga baahin markaas processkay uu ii dhamaana yani mesela warqad Englishki ka baahin laakiin admission ahaan way ku siiyeen documentiga way akhriyeen wixii dhan waxa lagu leeyahay oo qalantaa inaad ku siin admission jaamacada laakiin conditional waxa kugu xiran midaas oo luqadda English ma soo gudbinay ilaa aad ka soo gudbinaysid luqadaas Englishka shahaadadeeda kuma siinayno marka taas amal dib ku qabsato waxa way conditional la leedahay waxa way aqbalaad waa laakiin wali warqad meesay soo dirin waxa way documentiga liiga baahan process gareeyo oo aan diro mise yes I have unconditional offer yani waxa way unconditional yani wax iguma xirno oo hadda jaamacad documenti iga baahno admission kee warqadeeda gacanta ku haysta wax ma iga baahno way yani wixiga waa ii diyaar way scholarship idinka ICC bisa iga dhiman way iyo no maya yani wali wax maana apply gareyn have you already applied to this course may waxna maana apply gareyn iyo yes I have applied and I am waiting a decision waa apply gareey laakiin wali waxaan sugayaa go'aan yes waan apply gareey mise reject ali soo dheh oo ali soo reject gareey adiga garanay markii maybe ana waxaan leeyahay I have a conditional offer yan haysta hadii congratulations ambali if you are offered achieving award you will be required to meet the remaining condition by 14 July 2022 alright then submit a new dir sidoo kale submit a new mid cusub dirayaan jaamacada labaad aragtid dalbo alright jaamacada rawa waxay tahay London Business School jaamacadan ayaan rabaa confirm university there alright select finance master jaamacadan koowaad ay ahaan doontaa rankiga waxaan ka haystaa aqbalaad buuxdo I have unconditional offer congratulations please ensure that you satisfy the conditions so that you can receive an unconditional offer no later than 14 July submit and add new jaamacada saddexaad select jaamacada waxa waaye Aberdeen University jaamacadan confirmed ani example ahaan idin tusaya meeshan laakiin isku day inaad adiga jaamacada rabtid apply garisid kuliyada ka rabtid aad ka apply garisid rankiga labaad ay ugu jirtaa jaamacadan no maybe ka soo qaad yes I got reject ayaan helay so waxay ku leeyihiin sorry to hear that adan wuxuu inaa maqalmidaas we will recommend
choosing an alternative course which you can be certain to be acceptable. Please remember that if offered a Chevening Award, you will need to have unconditional invest offer. haddii aad ku guulayso scholarshipka Chevening Awardka, you will need how baahnaan doona unconditional invest, yani jaamacadda in admission case sida u baahnaan doonta dabcan sax. alright, isku day hadaa reject loo soo dhimcina hani jabin koorsada bedel wax sameey jaamacadda kala apply garay si aad scholarshipka aad u heshid. alright, then submit. alright, submit then save draft. okay, aan imaano saddexda jaamacad waatana jaamacad keena kuwa London Business School wano jaamacadna Aberdeen University, Cardiff University, saddexda jaamacad. alright, subject course area. Please classify your course choice under one of the following subject area. If your three courses choices fall under different subject area, please select the subject area that most closely matches your first rank. Yeah, I can say accounting and finance. okay, immigration. سؤالان سفي عن سكي آخرين حواي دا قرديد حوا بروبلمي كاي إيماني كرو. okay, do you hold a valid passport for your country or territory? passport ما هستا يعني date كيس أوسان ده invalid. yes one هستا valid passport. so passport ID number كاي جلي B 008977. yeah, just like this. how I met Ben Wibe Runman. do you hold refugee status? refugee status ما هستو. do you hold any other legal residence? other legal residence كلمة هستا. no ما هستو legal residence كلمة. have you ever been to UK? بيلقى UK ما تكتين. no. do you have a valid UK visa or permission to enter or remain in the UK? do you have a valid UK visa يعني valid UK visa ما هستا or permission to enter or remain UK ما هستا هذا لكن مركز scholarship كيس يسيسينا حارسان دونا. have you ever been refused a visa from any country? وليا يعني فيزا reject من الوصول أو من الوصول دي in ودن لغا سوديده مجرى including the UK ودن UK كجرو. or had you extended or leave it to remain to any country including UK or refused مجرى وحنا عس ودن وليا فيزا لغا سوديده ودن أو لغا سوبري وحنا عس مجرى. no مجرو. have you been deported, removed or otherwise required to leave any country including UK in the last 10 years? ودن مجرى يعني لغا سو ترحيله ودمتك يعني 10 سنة ودن بي مجرى including UK ضلك UK كجر مجرى ما يمجرو. do you have any crime convicted in the UK or any other country? مجرى وح يعني crime لغو قبت يعني أتسميس مجرى ما يمجرو إلهي نغاية. have you ever been arrested and charged with any offense in any country and are waiting or corrected or treated? بلغا يعني واحد دنبي مقاشة أو يعني have been arrested ملوه حيرا أو judged ملوه حكم يعني واحد يعني ملوه حكم محكمة دو حساس ملوه صار مجرى واحد نوعاسة ما يمجرو. okay, save draft. submit to Chevening هادين save draft ده مروب. سؤالان اسكفيري يعني بنادنا وحوا قلدي كلا مركا فضلا إناد يعني الجارد كويس اسكو دي. okay, قيبتان وان دميني terms and conditions ايمانو. terms and conditions وحاواي وحاوم واي إيغاني سؤالا أدوك جوابي سدواي وحب ساسو بدن معا. okay, the objective of Chevening is to support UK foreign policy priorities and create lasting positive relationship with the future leaders, influencers and decision makers. all award recipients are required to confirm they will adhere to Chevening. so سؤالنا يسلفيرن إيغاني أنك جوابنا during your award. I will attend mandatory Chevening events held during my award. I will attend mandatory Chevening events held
held during my award. Yes, I will attend. يعني هدا guulaysa scholarship ay UK tagtid waxaa jiro events يعني waxyaabo xalfada yaryar waxyaabo ay qabtaan qolada scholarship oo ardayda ka qayb galaan ma ka qayb gali doontaa ha wala aysan qana dadka scholarship xariisto oo soo bax meelaha markii waxyaabo noocaas barnaamij jir lama tago waxa waaye niyool magaalada iska gala laakiin muhiim ay ku tahay tagtid ha de I will actively engage with the achieving network with the UK يعني si joogta يعني ugu xirnaani doona يعني networking UK achieving networking UK يعني wax kala maahan barnaamijyada jirana ka qayb qaatid wax walba soo cusboonaad ina la socnad active ahaatid maanta maxaa cusub maybe ardayda sanadkan imaan doonaan adiga maadaama meesha uu soo horeysay inaad soo dhaweysid ama magaalada tusid waxyaabaha caawimaad u baahan caawisid sidaas oo kale alright I will remain in UK during my award except for authorities absence and understand the condition not to spend more than 30 days outside of UK during this time. سؤال answer فيرن I will remain in UK during my award. I will remain يعني دلك UK أنجوج دونا حليقة يعني أول مرة تاني أن هستو scholarship and understand the condition not to spend more than 30 days outside of UK يعني حليقة لبضة سنة دي هستيد dalka UK inay joogto loo baahan yani ugu yaraan 30 maalin yani hal bil ina ka maqnaatid lama rabo. I will respond to survey sent by Chevening to help evaluate the success of the program and informing ongoing program development. waxaa jira questionnaire survey oo la buuxinayo oo Chevening qoladan soo diri doonta scholarship-ka wixii kaaga baahan inaad mar walba waqti aad siisid su'aalahaas aad ka jawaabtid surveyadaas questionnaires ka qayb qaadid si aad yani u ogaadaan يعني حالة جرت مركز وحابنا دي جرت أرضي ميلي كليتان وحيو يعني سوا لوس مي سيرفي كويشنير صوب يعني شيء له هذا يعني مركز يعني بارس ميني سيدا وكله واسميسين كويشنير سيرفي واسميسين مركينا وقت جلست اسكودي after you award كدي قوش هذا يعني award كايه I understand that any request to remain in the UK will not be guaranteed including for the purpose of further study or employment. I understand that any request to remain in UK will not be guaranteed, including for the purpose of further study or employment. يعني بحاول مهمة إن فهمتي اسكودي إن هذا كوهرين عن ذلك UK. Request to remain in the UK will not be guaranteed, including for the purpose إلا يعني maybe هذا وحبر شكل هيش scholarship كلمة شقة هشيا وجوك كرتا لكن سمعنا درينا وجوكتي اسكيلال يعني دلكا يقوبان كلاو كشقة يعني هقول هلا صوي I will actively engage with the Chevening alumni community in my country and globally يعني community Chevening وكو حرنان دونا يعني ما دام مركزون يزرقوا سولاتي دينا إلودي لومباني إن community كو حرنات دلكاga arday badan xariisan doonto ardaydaas ina waxyaabo u baahan yihiin waxyaabo la kulma doona ina u sii sharaxid global ahaan caalam ahaan group ya jiro ardayda ay ku wada sheekaystaan ina ku xirnaatid mar walba active ahaatid yes waa sameyn doona midaas insha Allah I will join Chevening Connect the alumni portal la jiro ay leeyihiin oo dadkaani Chevening ardayda ku guuleystay ardaydii hore u dhameeyay waxaan sheekooyin badan ay keenay doonto waa ku xirnaan doona alright yes leh wax ma yalla am jirma wax walba haale alright I will respond to future surveys sent by Chevening to help evaluate the success of the program and information ongoing program development oo ka soo jawaabi doona surveyada questionnaire ay soo diraan Chevening qoladani scholarship beso alright save draft leh alright here we go sidoo kale meeshan waan dhameynay the last place meesha ugu dambeysay bismillah upload documents and submit waxaa meeshan waxyaabihi aad nooga baahan yahay inaan dirno documents-ka iyo wixii alright waxaan time uma hayna aqriya fiiri dib u aqri iska fiiri waxaan u dhan ina aqrisid fadlan time geli equal opportunities at the same thing sidoo kale meeshan aqri si fiican u aqri alright imaan meeshan do you consider yourself to have a disability يعني نفس دانت هذا مسكوت تحكي لي يعني قف disability يعني مالك حنوصن سي لو هاي متى هاي disability يعني عريان كله ما يعني هدي
maqal wax maqalitaan hada kuwa adagtay hada aragtidaada ay yar tahay yani haddii hadalkaaga uu adeeg yahay ma fahmino waxa soo disability way haduu jiro yani ha sheegin yani ben hade marka ani alxamdulillah caafimaad uu siimay milihi. Do you require specific arrangement in order to attend an online or personal interview? Do you require a specific arrangement in order to attend an online or in personal? مو باهنت يعني specific يعني arrangement سقاسة إن يعني لقوه سما يعني interview جاي مو باهنت هذا واحد كسيكاين قف حنوسة ما يبوح قبت هذه جران هذا يكون تعلم مركب ما يعني مباني أو حواي problem مباني هذاني. Do you require a specific arrangement in order to attend an online or personal interview? مو باهن يعني حواي أنا اللي يقولك إيمانك رو وحوا هذا واحد قوني لي سمينا مو باهن. Please state your gender كاي حواي man ماته woman ماته وحاجرني سلا جرني طبعا نرجعني man. Do you consider yourself to be a part or any minority or disadvantaged group in your country? تنا وحوا يعني ذلك أمريكا جوت يعني هذه مسكوته جلسة إنك سوجد يعني قف لليذو يعني متى يعني قف يعني إذا هاي عم مثل قبيلك سوجد عم القف لليذا ما تهاي ضلية سمياتها يعني ضد minority ما كجرتها معنا يا وأسن قانا 4.5 anyway waxay ahaato may kuma jiro brother Somalian brother. All right may okay and where did you hear about Chevening? Okay intee ka soo maqashay scholarship Chevening scholarship intee ka soo maqashay and where did you hear meesha ka soo maqashay fadlan sheeg fadlan haddii aad tahay yani scholarship ka aad ka maqashay fi YouTube keena fadlan noo tixgeli maxaa dhahdaa others deh then link YouTube channel keena post ku dheh fadlan hello YouTube keena video kamid ah tag link yada soo qaado post ku dheh fadlan noo tixgeli inaanu meeshan no mention grace. Thank you so much. All right how long did you consider applying to Chevening in this application round before beginning this application? I think 2 years, more than 2 years, less than 1 year, like more than 2 years. What were the major factors that led you to apply the Chevening? يعني waxyaaba ku hogaaminaya inaad apply garaysa aan Chevening scholarship kan marka adiga garan maybe the advice of college. Then have you applied to Chevening in previous years? Ma apply garaysa previous sanadii la soo dhaafay maya ma apply garayn hadda igu horeyso. Have you considered applying for any other scholarship funding? Have you considered applying for another scholarship funding? scholarship kale yani consideration masis apply garantooda xariistaankooda yani waqti majlis oo maxariis hadii jirtay hadii jirin maya laakiin hade geli yani waxay ogaanayeen inaad tahay qof rabo yani inuu helo waxbarasho inuu helo danaynayo yani waxyaabo badan apply garaynayo hamigaaga kaliya ku xiran yani ina scholarship kan kaliya aad xareyso oo aad muhiimadaada kaliya tahay yani ina UK ay maanta taasna way fiirinayaan marka maya hadaa dhahdid waxa waaye waa isku dhamaatay laakiin hadaa dhahdid please provide details scholarship-da kala waxyaabaha xareysa meeshan ku qor magaceedooda waxyaabaha isku dayda scholarship deeqada waxbarasho kala xareysa fadlan isku day mesela waxa xareysay Turkish scholarships Turkish scholarship أحري كسوقات complete education documents. All right please upload your certificates and transcripts for each complete course of study or transcript only for incomplete course. This must include your complete undergraduate degree. This must be uploaded 22 February 2020. You upload anyway waxawaaye warqadihii laga baahan yahay meeshan tan waxa way shahaadadii jaamacadda laga baahan certificate-ka transcript-da inay gelisid qaybtan laga baahan yahay qaybtan conditional offer for proposing courses conditional offer ayaa meeshan laga baahan yahay conditional offer waxa ka wada
يعني jaamacadda hadaa ka haystid conditional offer يعني jaamacadda admission way ku siisa laakiin waxay kaaga baahan tahay warqado oo inaad dib ka soo dirtay yani weli aadan soo dirin maybe laga yaabo Englishka warqadiisa inay tahay haddii jirto warqadaas geli ahaysa jaamacadkiisa hadda unconditional aad ka haystid oo yani complete admission complete jaamacad ka haystid sidoo kale geli okay meeshaan reference-ga ku imaaday reference-gaaga ugu yaraan 2 qof laga baahan yahay akhri sidoo kale qaybtan reference name and contacts meeshaan sidoo kale akhri then save draft deh meeshaan ay kaga soo wada muuqan doonaan okay qofku koowaad reference koowaad waa kana reference-ga labaad meeshaan uu kaga soo muuqan doonaa sidoo kaleeto then passport-kaaga meeshaan geli qaybtani fadlan passport sidoo kale qaybtan geli then feedback aan u imaano yani aan had gelgeliye ma iga baahanid laakiin waxa waaye maadaama dokumentiyadana aanan haynin aan diro aan rabin inaan diro application-kan yani tusaalahan idin tusayo fadlan inaad buuxiso isku day meeshaan waxaan ku dhahay qaybtan complete education documents meeshaan waxay gelisaa shahaada please upload your certificates qaybta kood certificate-ga jaamacadda geli meeshaan conditional offer hadaa ka haysid jaamacad admission oo conditional hadaa sidoo kale ka haysid unconditional offer meeshaan geli reference-ga ku imaado qaybtan koowaad reference-ga qof professor koowaad reference-giisa geli tan labaad reference letter tan labaad sidoo kale meeshaan geli passport-ka meeshaan geli then feedback-ka noo imaado feedback alright user friendliness of the online application system ilaa yani application-kan intaan soo wadnay sidoo yani muu cuslaay madhib badnaay maya very satisfied ayuu ahay speed and capacity of the online application very satisfied clarity of the instruction provided by the online system very satisfied overall online application system very satisfied hadii comment additional arabtina ku dirtid ku dar then meeshani I agree with the statement above yes leh ina meeshaan yes lah isku day sidoo kale alright application keeni waan dhameynay waa intaas hadda submit to Chevening hadana waxa documentigan uu naga tagaya oo Chevening ayuu gacanta u galaya oo meesha uu noogu dhamaanaya yani hooshani alright fadlan marka waxa isku dayda waxyaabahan oo dhan aan ka soo hadlay inaad si fiican iskaga fiirisid wax waa qaldi kara bini'aadan ay nafisheedan ay ugu xiriiro video bilow la dhamaada soo daawanaysa really thank you so much qof waxa tahay yani xaqiiqdii dulqaad leh ilaahay ku barakeeyo ilaahay ku sharfo asxaabta haday jireen videoga u dir fadlan Soomaali saawnaane waxa xasidina waxa isxasidina fadlan doo waxaan wax lacag ku bixin ay free tahay qof walaalka isleed wuxuu ka faa'iideysan doona iskaga dir laga yaabo inuu ka faa'iido xasidnimada iska daam so aadiyada in rajeenaya qeyr badan idin rajeenaya ilaahay ku sharfo videogan hada soo daawatay fadlan sidoo kale haduu videoyadeena ku caawiye fadlan consider it no tixgelina subscribe sartid YouTube keena asxaabta u share gareysid thank you so much